السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هالك ما توحى كنت يارنتونا بين كتبي تونا بعشر كان إنه إكسل كان أي كنت يارنتونا قابك organization charts لا سمايا أول وحنو إسليجي تونا إنه فوكس كساري تونا قابك لا سمايا organization charts marka diyaarinayno waxaan soo qaadanay sample kaasoo raysinay planning qorshe strategy planning team ayaa ku xiga ilaa mission vision value strategy analyzing gathering of information analyzing and interpretation your goals dhammaan waa ku halka ka muuqda marka excel baan ku soo qornay excel kibin soo gelinay halkaas ay ka muuqdaan aad aragtaan kadib waxaan samayn doonaa waan copy garan doonaa copy ayaan taaban doonaa halka waxa ka muuqda sheet 2 halka waxa ka muuqda sheet 3 marka waxaynu tagi doonaa sheet 2 ayaan ku dhufan doonaa marka sheet 2 ku dhufano excel kani waxa noo soo baxaya new sheet baa noo soo baxaya marka new sheet ka noo soo baxa waxaan ka sii tagi doonaa si aan ku sameeyno charts kani insert marka tagno waxaan ka dooran doonaa smart artist ayaan ka tagi doonaa smart artist tay ku qorantay ku dhufanayna marka ku dhufano waxa noo soo baxaya dhamaan charts ka kala duwan halka ka muuqda ayaa noo soo baxaya marka taas ka dooran doonaa marka waxaan ka sii dooran doonaa organization charts tay ku qoran tahay taa ayaan ka dooran doonaa marka saa ugu dhufano halka waata waxa soo dhigay adiga relationship isticmaalayo xogta information report kan doonaysay xiriirka ka dhaxeeya oo ku sameeynaayo the assistant shapes kala duwan isticmaal midan ay ku qoran tahay organization charts marka okay ayaan siin doonaa marka okay soo siino waxa noo soo qormay iyadoo wax ku qornayn marka waxa doonaa automatic ahaan inay wax ugu qorno marka waxaan isla qabanaynaa control iyo plus iyo a kadib waxaan isla qaban doonaa control iyo v marka automatic ayay ugu soo qormayaan imika waa kuwan halka waa ka yimid waxaan sameyn doonaa marka waan yar weynayn doonaa si ay noogu muuqdaan waanaga yar weynaynay marka waan yar weynaynay hada marka waan weynaynay oo dhamaan si fiican bay noogu muuqdaan hadii aynu xagga sii duuno xogteena waa taa ka muuqata xogteena waa tan xogtii aanu sameynay ama xogta doonayna inaan ku qornaano waa taa ka muuqata wata markaad ku qorayso excel ama excel ku diyaarinayso organization charts kala duwan markaad ku diyaarinayso qaab kala duwan ayaad adeegsanaysaa marka imika waa ku halka ka muuqda information keena waa halka ka muuqda hadii aan yar weynayna ayaga oo yar yarayno qaybtan kala xagga u yeerayna iyadana qaybtan iyo weynaa si aan aragnay yar weynayn doonaa marka waa ku halka ka muuqda planning structure halkana waxa ka muuqda waa ku halkan xogti ka muuqda automatic ahaan ayuu noo soo geliyay markaan doonayna inaynu sameyno inuu caadi u sameyno oo isticmaalno xogtii waxaan sameyn doonaa ama ka tagi doonaa campaign habeynayna guideline markaan ka qaadnay okay wata xogtii marka imika xogteeni way muuqataa halkan bay xogteeni ka soo gelinay sheet 1 bay tagaynaa halkan bay markii hore ku soo qornay markaan halkan ku soo qornay xogtii waxaynu nimi sheet 2 intii soo copy karaynay kadib insert baan nimi waxa ka nimi meesha ka qoran tahay smart artist ayaan ku dhufanay smart artist marka ku dhufanay waxa noo soo baxay information kan xogtan bay noo soo baxday kadib waxa ku dhufanay halka marka waxaan ka dooranay taasaan ka dooranay organization charts marka lagu muujinayo xiriirka ama information ka doonaysid organizationada in excel automatic ahaan si fudud soo gelinayso marka waad edit garaynta iyo qaabka loo edit garaynayo iyo qaabka information ki oo dhameystiran oo graphics ki ku muujisay yihiin iyo qaabka relationship ka loo sameynayo casharka dambe ayaynu ku diyaarin doonaa casharkan kan ku xiga ayaynu soo gelin doonaa iyadoo edit garaysan iyadoo amba 3D amba 2D laga dhigayo 3D oo kale 2D oo kale
editing oo kale iyo ma garanaysaa qaab graph ahaan relationship ka dhaxeeya xogtan oo kale sidoo kale horeeyaan ama kala miimisay oo kale isa la isku barbar dhigayo oo lagu muujinayo organization charts-kii ahaa casharka dambe ayaynu ku diyaarin doonaa kaasaynu ku edit karayn doonaa inagoo halkan ka sii qaadi doonaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh